madal si heer sare lahaan agaasimi oo xuquuqiib galeen odayaal waxgarad ganacsato dhalinyaraha kujeeda koonfur galbeed oo kordhiyadii beledkan Boosaaso hayti tolka taageeray wasiirka diinta iyo qaafta koonfur galbeed Soomaaliya mudane Saalax Shariif Siidkey kaasi oo dhawaan ku mid noqday baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo deegan doorashadiisa hayti koonfur galbeed dadka kulankan ka hadleen yawabaysid indhoyin sheegana in wasiir Siidkey muddadii uu silka hay koonfur galbeed walbadanka gobadi yoona hatana ku rajayn in walbadan qobada doona dhinay kalmayba amaan bogaadin injeediyana madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen doorkii muuqday isu ku qaaday sidii dhalinyarada kaalin muuqata an kaweeldada lahaayeen baarlamaanka cusub ee Soomaaliya runtii waxaan aad ugu faraxsanahay bishii 10aad inay ahayd ayaan qiyaasayaa baynu halkaan isugu nimid xafladaas oo ay ahayd aynu ku taageeraynay wasiirka inuu xildhibaan noqdo caawa waxaynu u dabaaldegaynaa wasiirkii oo xildhibaan ah arrintaas fadligeeda waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha dawladda koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo sanadkan dhalinyarada Soomaaliyeed door muuqda ka siiyay baarlamaanka Soomaaliya sidaad ogtihiin waayadii hore kuraasta baarlamaanka federaalka gaar ahaan koonfur galbeed waxay ahayd kuraas muddo dheer ay fadhiyeen xildhibaanadii kuraastan ku fadhin jiray sanadkan Cabdicasiis taariikhda ayuu galay isbedel la taaban karo ayuu sameeyay wasiir Saalax maybadii iskool oo inuu saargudbi koonfur galbeed ya xaflad maybad qabsaday guddaan mayba ayada mujaasem intuu say samafalo oo bulshada hoosan ka shaqeey markii dambana aan ka shaqeey wasiirnimo hadana xildhibaan golaha baarlamaanka Soomaaliyeed uu qayb ku nagay walaalayaal siisan dhan la wada socotaan way baa xildhibaanka Saalax hata qaaday asharaafana lahayti hadana asharaafa qaadatay lange ku humay balanaha may baa siin sheegay muddo intaas oo sano xildhibaanku sugaaytay tumid dhowr sano may baa haysadeen dad walaalo oo sharafay haysadeen hadan dad walaalo kale oo sharafay haysadeen waana ka eedananka kala soogna lan oo geedka ku ka xaboonay oo xildhibaanka saada fadina ma jaro leen horta insha Allah ta'ala koonfur galbeedna may balana hor socod wanaagsan madaxweynaha cadaalad iyo hata kooy sababtu isku kooyna meeta umado korasigan dhaxaltooy walan si ismaleeyeen oo 20 sin iyo ku badan ka fadhiidi ya may hal jifleen hayna meel kasta baa ya korasta sidii cadaalad hayti ansuubi madaxweynaha Cabdicasiis Laftagareen may balana hambaliyo lana markastana makil maamadoona bal dahab wadanka adduunka ku galay madaxweyne kasta saas cadaalad falow may balana hor socod wanaagsan yalla wasiir Saalax may balana hambaliyo hadawaaw reer koonfur galbeed eedakii sugaayeen marlamaad iyo marsidaad hambaliyo kalena gaar ahaan ma inta ku hambaliyay madaxweynaha Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen meel madaxweyne guulada hooyadii guul wanaagsan lahaa talamay may hambaliyay wasiir Saalax oo ah aqalka Soomaaliya federaal kursiga numberkiisu yahay 261 Maxamed Buufiyo raadiyaha TV-ga koonfur galbeed beledkan Boosaaso